Better International University. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوادا عشر كيني كورسكي Cost and Management Accounting 2 chapter كيسي كواد أو أينو كجاه اللي دانو وحلو يقانو Cost Volume Profit Analysis أو أيجي دانا حرير كده هي صدق شيء وكوست كا Volume حدقة وحصوصار كا iyo profit ka xiriirka saddexda shay ka dhaxeeya ayaynu ku baran doonaa ugu horeyn hadii aynu isweydiino inta aynaan calculation keeda iyo xisaabteeda aynaan galin what is CVP maxay tahay cost volume profit analysis waxa aynu ku tilmaami lahayn it is the most basic planning tool waa toolka ugu basic san ee micnaha wax lagu cabiro ama analysis lagu sameeyo ayaa uu yahay most basic planning tool weeyaan CVP oo lagu sameeyo analysis-ka hadii aynu sharaxaad dheeraad ka sii bixino waxa weeyaan examines waxay baadhaa CVP-du xiriirka ka dhaxeeya total revenue dakhliga guud total cost kharashka guud iyo operating income saddexdaasi xiriirkooda ayay eegtaa sidoo kale waxay eegtaa saddexdan sida ay noqdaan marka uu isbedel ka dhaco output level xadiga wax soo saarka ama xadiga alaab la iibiyay waxa aynu baranaynaa sida ay ugu jawaab celiyaan isbedel marka uu ku dhaco selling price-ka waxa aynu sidoo kale eegaynaa saddexdii shay ee total revenue total cost iyo operating income sida ay noqonayaan marka uu isbedel ku dhaco variable cost per unit oo ahaa isagana casharadii hore si aynu ku soo baranay isaguna ahaa alaabta aynu warshada ku isticmaalayno ama alaabta aynu iibinayno lacagta inaga soo gasha iyo shayga afraad oo ah isaguna fixed cost CVP waxa la inagu yiri waxay ka jawaabtaa what if analysis CVP waxay inooga jawaabaysaa su'aal kasta oo ku saabsan hadii marka laga hadlayo financial analysis hadii price-ka aynu inta ka dhigno faa'iidadu siday noqonaysaa hadii supplier-ku discount inoo sameeyo oo inta ay naga soo siiyo sidee bay noqonaysaa faa'iidadu hadii quantity-ga aynu dhinno sidee ayay noqonaysaa hadii aynu for example wax soo saarka badino sidee ayay noqonaysaa faa'iidadii qaybtaasi waxaynu kaga hadlaynay what CVP hadii aynu hal mar soo dul marno waxaynu ku baranay inay tahay the most basic planning tool sidoo kale waxayna bartaa xiriirka ay leeyihiin total revenue-ga total cost iyo operating income-ku marka uu isbedel ku dhaco xadiga wax soo saarka selling price-ka iyo variable cost-ka iyo fixed cost-ka waxay inooga jawaabtaa baynidhi what if analysis inta aynaan u gudbin CVP xisaabteeda waxaynu mar labaad eegaynaa assumptions-ka ay ku shaqeynayso CVP assumptions waa waxyaabo laga soo qaaday oo laga yaabo inaanay in reality inaanay run ahayn marka maadaama aynu baarayno xiriirka ka dhaxeeya cost-ka iyo volume-ka iyo profit-ka assumptions ayaa jira assumptions iyo terminology baynu halkan ku baran doonaa assumptions-keena waxaynu soo qaadanaynaa waxaynu leenahay markaynu CVP ka shaqeynayno changes in the level of revenues isbedelka ku dhaca dakhliga and costs iyo isbedelada ku dhaca marka isbedel markaynu leenahay revenue-ga isbedelka ku dhacaya wuxuu noqon karaa hoos u dhac waxa kale uu noqon karaa kor u kac sidoo kale costs-ka isbedelka ku dhaca oo isaguna sidaas oo kale hoos u dhac iyo kor u kacba noqon kara waxaynu leenahay arise only waxa keena because of change in the number of product units produced or sold waxa keenaya bay leenahay tirada products-ka la sameeyay ama adeega la sameeyay ama la iibiyay
marka waa assumption kani waxa uu leeyahay isbeddelka ku dhaca dakhliga iyo kharashka wax lagu soo saaro ee warshaduhu alaabada ku sameeyaan ama kuwa soo iibsada ay ku soo iibsadaan waxa keena isbeddel ku dhaca tirada shayga la sameeyay iyo tirada iibka marka waa assumption laakiin waxa laga yaabaa in practical this may not be true for example marka aynu practical ka hadlayna in reality revenuesku sababta kaliya ee ay u yaraadaan una bataan ma aha because of unities of products made or sold laakiin waxa ay noqon kartaa discount la sameeyay waxyaabo badan bay noqon kartaa marka in assumption in order to examine the cost volume profit analysis si aynu u sameeyno waxaynu ka soo qaadaynaa in labadaasi isbeddelka ku dhaca kaliya ay keento isbeddelka ku dhaca unitieska la sameeyay ama la iibiyay that is the first assumption oo aynu ka soo qaadano which may not be true in the real life assumption ka labaad waxa weeyaan total cost-ka micnaha shay ay warshadi samaysay ama shay qof soo iibinaya uu soo iibsaday kaga baxa waxa loo qaybin karaa laba waa fixed oo aynu casharkii hore ku soo dhiganay waa cost and output-ka isla bedelin iyo variable oo ah isaguna cost output-ka isla bedela labadaasi ayuu ka kooban yahay marka shayka assumption-ku waxa weeyaan shay kasta oo warshadi samayso ama uu qofka soo iibinaya soo iibsaday cost-kiisu wuxuu ka kooban yahay laba waa total fixed cost oo lagu daray total variable cost assumption-kaasina sidaas ayaa uu isagu noqonayaa waa laga yaabaa marka assumption-kan laga baxo in total cost of a product ay noqoto waxyaabo kale in lagu daro laakiin marka aynu CVP dhiganayno assumption-ka sidaas ayaynu ka soo qaadaynaa assumption-ka saddexaad waxa weeyaan the behavior of total revenues and total cost is linear xiriirka ay total revenue-ga oo dakhliga ah iyo total cost-ku xiriirka ay leeyihiin output-ka xaddiga wax soo saarka ama xaddiga wax iibintu waxaynu ku tilmaamaynaa inuu yahay linear mid toos ah oo macnaheedu ah haddii revenue-ga talaabo lagu daro ama xabad lagu daro inta in leeg percentage u dhigma ayaa ku darsamaya marka dakhligii iyo kharashkii marka inta badan in practical iyaduna sidaas kuma dheelitirna oo waxa laga yaabaa xiriirka ka dhaxeeya total revenue total cost in relation to output marka dakhliga loo eego xaddiga wax soo saarka ama iibka waxa laga yaabaa inaanu noqonin linear waxaan ka wadnaa waa line toosan oo markaa muujinaya in labadan shay uu ka dhaxeeyo xidhiidh toosa oo micnaha haddii mid wax lagu daro ay ka kalena ku biirayso laakiin in real life waxa laga yaabaa the relationship between the two waxa laga yaabaa inaanu linear line aanu noqonin waxa kale oo aynu ka soo qaadaynaa sababtoo ah waxaynu cabiraynaa waa cost-ka volume-ka iyo profit-ka maadaama aynu saddexdaa cabirayno selling price-ka oo isbedela keeni kara sidaynu qaybtii hore ku soo sheegnay iyo unit variable cost shayga lacagta lagu soo iibiyo xabadiiba iyo fixed cost-ka saddexdaaba iyagana maxaynu ka soo qaadanaynaa waxaynu ka soo qaadanaa inay yihiin constant which is not true also taasoo iyaduna aan ahayn laakiin waxaynu sidan u yeelaynaa si aynu u aragno xidhiidhka saddexdan shay cost volume iyo profit waxaynu ka soo qaadanaa all other things being constant waxa kale oo dhan waynu joojinaynaa waxaynu ka soo qaadanaa inaanay iyagu isbedel ku dhicin si aynu saddexda behavior-kooga aynu u baranno assumption-ka u dambeeya ee ay ku salaysan tahay CVP waxa weeyaan all revenues dakhliga guud iyo cost-kaba can be compared waxaynu analysis ku sameynaynaa inagu without considering innaga oo aan tixgelinayn fikraddii caamka ahayd ee financial management-ka ku jirtay ee ahayd time value of money micnaha in lacagta qiimaheedu uu waqtiga isla bedelo waxa aynu xasuusanaa inaynu oran jirnay marka time value of money aynu ku xisaabtamayno a dollar of today is better than a dollar of tomorrow $1 oo maanta haysataa waxa uu ka qiimo badan yahay $1 oo aad bari heli doonto
waayo waxaa laga yaabaa $1 oo aad maanta haysataa inuu u dhigmo 0.8 beritola because of time value of money maadaama ay jirto lacagtu ay xidhiidh la leedahay qiimaheedu xagga waqtiga maadaama aynaan halkan ku dhiganayn time value of money laakiin casharkeennan waxa assumption ku yahay we are not considering the time value of money qaybtan kooban halkaas ayaynu ku daynaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh